sida aan wada ogsoonnahay doorasho ku sheegtay ka dhacday 23 bisha May wadankaasi Itoobiya kooxihii mucaaradka ahaa ee la tartamahayay keligii taliya Malla Zanaawi waxa ka soo gaadhay waqcad siyaasadeed oo fool xun faalla arrintaasi ku sabsan waxa inoo haysa wariye Foosiye Maxamed wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay doorasho ku sheegtay Itoobiya ka dhacday 23 bishan May ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay xiisado iyo kacdoon xoog leh ku reebeen dadkii codkooda la xaday khaasatan gobolka Oromiya oo isagu ahaa goobtii ugu mashquulsanay dalka Itoobiya intii doorasho ku sheegtay lagu jiray dadka Oromiya oo ah ku dhawaad kala bar dadka ku hoos nool cadaadiska Itoobiya ayaa gabi ahaanba 178 kursi ee ay ku lahaayeen kuraas ku sheegta baarlamaanka gumaysiga Itoobiya waxa gacanta ku dhigay xisbiga ay Tigreega hogaamiyaan ee EPRDF arrintaasi ayaa waxay dadka Oromiya ku reebtay xiisad aad looga cabsi qabo in ay sababto iska hor imaad ay kooxda Tigreega kaga hor yimaadaan kharajinta dhanka siyaasadda la xidhiidha ayaa iyadu intaysan doorasho ku sheegto bilaaban waxa ay ahayd mid caado u ahayd taliska wayaanaha waxaa haddana midaasi ka dambeysay markii ay dileen siyaasiyiin iyo taageerayaal fara badan oo ka tirsanaa isbahaysiga Medrek la magac baxay ee hogaamiyo Professor Merera Godina oo isagu ka soo jeeda qoomiyadda Oromiya sidoo kale waxaa ilaa iyo hadda soconaya ugaarsi xoog leh oo ay askarta Tigreega ku ugaarsanayso dadka xukunkooda ka soo horjeeda beesha caalamka iyo kooxda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay mar horeba soo qadimeen eedaha la xidhiidha musuqmaasuqa caburinta iyo amar ku taaglayn ay kooxda TPLF adeegsanayso iyadoo deeqihii dadka masaakiinta ah loogu talagalay warbaahintii iyo awoodii xukunkaba oo isticmaalay xeelado siyaasadeed si aan looba helin cid la tartanta natiijada uu keligii taliya Zanaawi ka sheegtay doorasho ku sheegtani ayaa waxa ay markhaatigii ugu dambeeyay u tahay dimuqraadiyad la'aanta Addis Ababa ka jirta waxaana wadamada reer galbeedka oo taageero badan siinayay Zanaawi u cadaatay in Addis Ababa ay u xubsiibatay keligii taliska aanu caad saarayn afhayeenka wasaaradda umuuraha dibadda ee Mareykanka oo shalay arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dawladdiisu aanay u dulqaadanaynin habdhaqanka keligii taliya Zanaawi isla markaasina ay doorasho ku sheegtani meesha ka saarayso xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay isku soo wada duuduub riwaayadii indhasuraxaadka ahayd ee Zanaawi waxaa fashil ku noqday markii uu yiri doorashadan qaban misana uu sheegtay in uu dhammaan kuraastii heer qaran iyo heer gobolba uu ku guuleystay tusaale ahaan ragga caanka ah ee adduunku isha ku hayay sumcaddana ku lahaa bulshada Itoobiya ay gumaysato ee iyagu ku guul daraystay kuraastoodii waxaa ka mid ah Merera Godina, Negaso, Gidada, Sayya Abraha, Bayane, Petros, Haile Shawel iyo rag kale oo badan kuwaasi oo weliba sida uu Zanaawi sheegay uu tilaabo naxariis darro ka qaadi doono maxaa shacbi gulaalay maxaa noloshii gadasho gudaya maxay gureebay maxaa dhalintii gumaaday maxaa shacbi gulaalay maxaa noloshii gadasho gudaya maxay gureebay كيي جناح محطة الداري محا كله سهري وهما يوري لقوري محا كوشي كيي جناح محطة الداري محا كله سهري وهما يوري لقوري
قبلعي واقي وضوهم قاري وايي محال قبني ما دلاتهم برحمة يوحي لقوي محال قبني ما دلاتهم برحمة يوحي لقوي sidaan wada ogsannahay waxaa waddanka ogaadeenaya ka socotay go'doomin iyo cunaqabatayn dadka gaajo loogu dilahayay mar labaad ayay xukuumadda wayaanuhu sii laba jibaartay cunaqabatayntii ay ku haysay ogaadeeniya haddaba su-aasha ayaa waxay tahay ma ciqaab wadareed ba ogaadeeniya ka dhacday mise doorasho jawaabtu waxaa inoo haya jaamac dheere tan iyo intii ay wayaanuhu bilowday qarowga waxaa doorashada ay ugu magac dartay waxaa jiray cadaadis gaara oo saaraa guud ahaan bulshada reer ogaadeeniya oo awalba la ildarayd go'doominta lagu hayay sannadaha badan iyo dhibaatooyinkii joogtada ahaa ee ay ciidamada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya la dul joogeen dhibaatooyinka ay doorasho ku sheegtani wadatay ayaa ahaa kuwa aad u qallafsan oo qof kasta si gaara u ciqaabay waxayna ahayd ciqaab wadareed xanuun kulul oo marna ayna bulshadu iloobi doonin balse ma ahayn sida ay wayaanaha iyo dabadhilifkiisu ugu yeedheen in ogaadeeniya ay doorasho ka dhacaysay waxaa magaalo kasta la saaray bandow bal iska daa inay meelo kale wax uga yimaadaane waxaa lagu soo rogay xayiraad lagu mamnuucayo dhaqdhaqaaqa magaalooyinka dhexdooda ah iyadoo dadka loo diiday inay ka adeegtaan suuqyada amaba in la furo dukaamada si ciddii heli kartaay wax uga gadato waxaa intaa u dheer dhac iyo boob xaddhaafa xadhig iyo barakicin joogto ah iyo duulaamo aan kala go' lahayn oo lagu qaaday dadka reer guuraaga ah waxaana xabsiyada magaalooyinka laysugu geeyey dad iyo dunyo fara badan oo aanay jirin wax dembi ah oo loo qisaasayo marka laga reebo inay yihiin muwaadiniin u dhashay Soomaalida ogaadeeniya balse habka iyo ciqaabta noocaasa ee ka baxsan bini'aadanimada ayay wayaanadu u yaqaanaan doorasho si kastaba ha ahaatee ogaadeeniya wax doorasho ah kama dhicin horeyna oogama aysan dhicin marka laga reebo xulashada wayaanuhu kala xushaan dabaqoodhiyiinta ay midba maalin u isticmaasho xasuuqa shacabkiisa waxaana hubaala inayna maanta shacabka ogaadeeniya uga fadhiyin keligii taliya Malla Zanaawi iyo kooxdiisa wax isbeddel ah oo ay keenaan waxaa xaqiiqo ah in maanta ay ummadda ogaadeeniya guul weyn u tahay mar haddii wayaanaha iyo kuwa u adeega ku dhici waayeen inay dhex keenaan sanaadiiq la leeyahay wax ku doorta dhib kaste oo soo gaadhana waxay ugu samrayaan inay yihiin shacab ku jira halgan khadhaadh oo ay isaga xoraynayaan gumaysiga itaalka daran ee maanta gabagabada taagan waxay shacabkeenna geesiga ahi maanta ku baraarugsan yihiin in waxa ay doonayaan ay tahay xornimana aanay jirin cid dhayal ku helaysa waxay taasi keentay in shacabku yahay maanta midaan lagu khaldi karin hadallada dhaboolaqa ah ee ka soo yeedhaya maamulka ay siyaasaddiisu ku dhisan tahay sarkhaannimada ee hadba meel kaga hadaaqaya jawxo ayaan wada hadal kula jiraa shacabka reer ogaadenyana waxay og yihiin in hadallada noocaasa ee ka soo yeedhaya gumaysiga iyo gumaysi ag-oolladu aanay ahayn mid ay wax ka jiraan waxaase ka maqan taliska wayaanaha in maanta dadka reer ogaadenya barteen gumaysiga iyo kuwa siyaasadda madhalaysta ah la soo shirtegay ee doonaya inay masiirka ummadda hagardaameeyaan shacbiga sharafta leh ee ogaadenya isaga ayaa leh halgankan ay jawxo ku jirto isaga ayayna u taallaa meesha aayihiisa uu marinayo iyo cidda si rasmiya u matalaysa waxaa hubaala in maanta halgankeennu guulaystay inta yar ee hadhayna uu shacbigeennu awood u leeyahay inuu dabada iska raaciyo waxaa hubaala in shacabka reer ogaadenya ay yihiin kuwa u joogi doona guusha kama dambaysta